مضينا للدراسة كل يوم نشد السير في أمل وعزم فقلدنا التخرج تاج حلم بلغنا في تقلده المعالي ففي قسم الدراسات التقينا بسم الله الحمد لله سود وهذا ودرسي لحد كورسدي sidee loo dhisaa website free ah iyadoo lagu dhisayo software kacaanka ah ee wordpress.com darsigan insha Allah taala wuxuu ku saabsanaan doonaa waa qayb kamid ah dhismihii website-ka waxa uu ku saabsanaan doonaa maanta dhowr qodob oo ay kamid yihiin isticmaalka software-ka loo yaqaano cPanel iyo sidoo kale software-ka sidoo kale isna loo yaqaano FTP labadoodan insha Allah taala waan baran doonaa labadoodana runtii waxay qayb ka yihiin waxyaabaha ay nasiisay shirkadda sida website-kan free-ga ah nagu siisay hadii aan account-kan anaga halkaan aan ku leenahay hadii aan galno waxaan insha Allah taala ku arki doonaa in cPanel iyo sidoo kale la siiyay FTP free ah dabcan waad aragtaa waxaan si toos ah u soo galnay account-kii aynu ku leeyahay shirkadda inventfree.com sida aad hore u aragteen waxa hore inoo yeelay maxaa la yiraahdaa somnetwork.com.ebz.com aan iraahday somnetwork.ebz.com iyo sidoo kale website-kii aynu dib ka dhisnay cashirkan aan ku wadno oo ah tijabo.ebz.com asaga ayaan gudihiisa u sii galeynaa si aan u ogaano waxyaabaha ay shirkadda maxaa la yiraahdaa ayna siisay shirkadda Inventi waana labada maanta uu ku saabsanaan doono cashirka iyaga insha Allah taala hadii aan halkaan fiirino waxaad ka aragtaa inuu ku qoran yahay control panel file manager edit account iyo sidoo kale mid ku saabsan maxaa la yiraahdaa history-ga waxaan ku dhufanaynaa control panel oo sida website-yada lacagta caadiga ah dadka dhiibo oo kale adigu ma isticmaalaysid inta website-ka gadaashiisa slash inta dhahdid cPanel kadibna account iyo waxay ku siinayaan maaha laakiin waa maxaa la yiraahdaa cPanel dhameystiran oo waxba aan kubi hore ka bedelnayn laakiin kaliya cPanel.ebz.com tan ayaa wax waliba hagaysa si toos ah ay cPanel-ka ku geynaysaa halkaas ayaan insha Allah taala duruusteena maanta qayb kamid ah ka sharxi doonaa وكان cPanel هذا ويب لعق أما ويب فريق وجيجان أمبولية مرولبو هكو كلا دوانادان شقوين كوحترك له ويقو قبنيان لكن مرولبو وحا إليهن كلية وجيجان مركز سيداس دراد دا أنت وحان إن شاء الله تعالى اسكو ضينا إننا سمينو إن سيدي مالين دويد بأن كوبالاني أها سيدي أيا إساقا بدلنا qaybtan ay ku qoran tahay .ebz.com oo ah runtii qaab aanan qurxanayn qaybtan ayaa insha Allah taala ku bedela doona markii aad soo gashid website-kaaga waxaad ku sii dhufanaysaa control panel oo ah midaan hadda anaga aan ku jirno cPanel marka cPanel ayaa loo soo gaabiyaa marka halkan markii aan joogno waxaan raadinaynaa qaybka ay ku qoran tahay domains si inagu aan domain kii ka qurxan walow maxaa la yiraahdaa user.com ama .net naqan laakiin kii ka yara bedelan oo .ebz.com wax oo ebz hadda markaan dictionary English ku baaray wuxuu noqday wax ay la mid tahay halis ama khatar yani wax gadaashiisa ay halis ama khatar ay ka jirto website runtii ma qurxanaanayo marka saas daraadeeda domains ayaad imaanaysaa waxaad ku dhufanaysaa midka uu ku qoran yahay subdomain hadii aad domain dhahdo waxaa laga yaabaa qayb lacag ah ayuu ku geynayaa marka waa tana qaybta caadiga ah anaga aan rabno wuxuu leeyahay create a subdomain
subdomainkan ma laga qaadayo wax lacag ah, waa un keliya akoonkaagii qayb unbuu ka yahay. marka kan ayaan samayn doonaa. markii halkan aan imano magaca u baahannahay ayaan ku qorinaa. tusaalo tijaabo ayaa inagu wuxuu noo ahaa saldhig. marka tijaabo mar waliba doodtaan horta kaama harayso, dood kaleetana kaama hari doonto, oo labadan dood mar waliba labadan dhibic waa ay ku hay doonaan, laakiin keliya tan ayaad un iska bedelaysaa oo xoogaa mid ka yara qurxan ayaad ku bedelanaysaa. waa aragtaan waxaa ku jira ilaa maxaa la yidhaahdaa 12 xabo ayaa ku jira. f.ga haddaa u baahan tahay, free cluster haddaa u baahan tahay, infinity free app.com oo website-kooda ay gadaal kaa dhigayaan haddaa u baahan tahay, 22web.org haddaa u baahan tahay, 100,001mb.com haddaa u baahan tahay, haddaa tanoo kale u baahan tahay, 66ghs haddaa u baahan tahay .com, a001.net haddaa u baahan tahay, fast/page. midaan mid ka qurxan aniga waan waayey, a0001.net tijaabo a001.net. waxaan dhan waxay kugu yeelayaana waxay tahay maadaama aysan lacag aysan kaa qaadanaynin, laabudda in ay ku suurad xumeeyaan. marka adiga muhiimadda waxay tahay anaga website-kan hadda aan u dhisayno, haddii xataa website-kan shirkadda ay kugu qabsato ama gadaal lagaaga yimaado, muhiimadda waxay tahay waxaad u dhaqantay oo ayaan dhan aad isticmaalaysay sida nin website lacag leh, maxaa la yihahdaa lacag ah oo lacag bixinayo oo kaleeta u isticmaalaysay. berina heerkaa markaa ka gudubtid oo website caadiga kuu gaara, shirkadda ha kuu ahaado ama company ama maxaa la yihahdaa aan iraahday ama mid shaksiya, hadhow aad sidiisa uga isticmaashid halkii aad kasii bilowdid oo waxba midkaaga aadan isaga barbaran oo aad kusii barbaratay website free dhinac waliba ah. markii halkan aan joogno waxaan insha allahu tacaala leenahay create. website-kii dabcan wuu samaysmay, waa aragtaan oo qaybtan hoose ayuu kasoo muuqday tijaabo.a001.net halkan ayuu ku jiraa. marka website-kan si aan usoo dhisno waxaan dib ugu laabanaynaa cpanel. markaan dib ugu laabanayno halkan oo keliya ayaan ku dhufanaynaa. loogadooda ayaan ku dul dhufanaynaa oo ay ku qoran tahay infinity free. marka website-kan si aan usoo dhisno isla halkii un ayaan aadaynaa insha allahu tacaala, oo maalintii dhaweyd ama website-ka bilowgiisii hore tijaabo sidaan kusoo dhisnay oo kaleeto qaybta oo software-ada ayaan galaynaa. waa aragtaan software qaybtan ayaan ka galaynaa. markii aan halkaan nimaano waxaan aadaynaa website-keena, mar waliba waxaan ku dhisayna wuxuu ahay wordpress. halkaan markii aan taaganahay bal aan dib idinkuugu celiyo warbaahintii goobjoog ee uu ku socday muuqaalkeena intiisa badan si aan idigu ekeysiino. marka annaga hadda waxaa inoo dhisan hal website iyo sidoo kale website dhex inoo maraya oo aanan dhammaystiran. website-kan aan hadda dib ka dhisi rabno waxaan insha allahu tacaala isku dayaynaa inaan u ekeysiino 100% warbaahinta goobjoog. hadda keeni waa uu yara egyahay, laakiin daymiska maxaa la yihahdaa ku install garaysan ma ahan maxaa la yihahdaa website daymiska midaan ku install garaysan. baaritaan dheer oo aan sameeyey kadib waxaan soo ogaaday in daymiska halkan ku install garaysan la yiraahdo daymis magaciisa la yiraahdo Jannah News ayaa la yiraahdaa. waa runtii lacag ayaa runtii uu joogaa oo qiimo ilaa $60 sidaan u maleynayo, oo waliba kaliya hal website ku isticmaalaysid. marka waa runtii marka dib u sii raacdid oo ilaa gadaal aad raacdid waa daymis aad u qurux badan oo website-kaagu ku qurxanaanayo. sidee ku ogaatay marka in sidee ayaan ku ogaaday inuu yahay maxaa la yiraahdaa daymiska aan sheegayo? kaliya waxaad sameyn doontaa page-ka marka aad dul joogtid website-kii aad maxaa la yiraahdaa u baahan tahay inaad ogaatid daymiska uu ku install garaysan yahay, waad dul imaanaysaa, right click ayaad leedahay, view page source ayaad leedahay. markuu kuu soo baxo halkan waxaad qabanaysaa Control F. hoos bal fiiri waxa ka dhacaya, wuxuu ku leeyahay fin in page-kan waxaa u baahan tahay kabar. markii hore koowaad horta waxaan soo ogaaday in page-kooda uu ku dhisan yahay software-ka annaga aan maxaa la yiraahdaa ku dhisayno
barnaamijkeena ama websitekeena wordpress. waa aragtaan wordpresskooda weliba waa 4.9.11 oo keena ayaa 100% aada uga horumarsan, oo haddii aan keena idin tusiyo waa fershinkii ugu dambeeyey ee ay soo saartay shirkadda wordpress. waa aragtaan waa fershinka 5.2.3 waa fershinkii ugu dambeeyey oo ayaga kooda ma ahan update. marka wordpress markaan ku ogaaday kadib waxaan ogaaday themska ku install garaysan. sidaas oo kale theme oo kaliya ayaad qoraysaa oo waad raadinaysaa insha Allah tacaala oo ku soo saari doonaa. kor haddaan kasoo bilowno themeskooda meelahan ayuu kasoo muuqanayaa. xitaa waxaad samayn kartaa themes hadaada dhihin ereyga naftirkiisa ku qori kartaa Jannah News. waa aragtaan Jannah qaybta uu kaga jirana waa maxaa la yiraahdaa qaybta uu kaga jiro maxaa la yiraahdaa waa sidoo kale waa themeska halkan ayuu kasoo muuqday Jannah. waa aragtaan waa kan waa Jannah fershinka 2.1.4 fershinkaas ayuu ugu install garaysan yahay. markii halkaas aan ogaaday kadib waxaan dhibaato badan u maray sidii aan kusoo heli lahaa themeskaas si inagu inoogu suurto galo websitekeena, si aan ugu ekeysino websitekan aan aniga bilicidiisa iyo stylekiisa aan ka helay ee runtii quruxda badan. aragtaan qaybahan waa sportska iyo ciyaaraha ayaa kaga jira, qaybaha hoose category ammaanka, qof waliba wixii siyaasadiisa ah iyo hadafkiisa ah ayuu kusoo bandhigan karaa. marka aan dhisna marka websitekeena themeskan waa hayaa wuxuu inoo yaalaa desktopka insha Allah tacaala. qofkii soo codsada ayaan sii doonaa. themeskaasna runtii suurtagal ma ahan inaan idin dhigo maxaa la yiraahdaa muuqaalka hadda aad daawanaysaan hoostiisa, sababtoo ah waa themes aan soo hadgareeyay dhibaato oo dhanka youtube-ka ah ayaa iga imaanaysa, oo haddii ay ku dacweeyaan ay report ka gudbiyaan hadhow youtube-kaaga ama meel waliba oo aad adiga ku leedahay baraha bulshada ayay saameyn kugu yeelanaysaa. marka aan dhisno websitekeeni install ayaan leenahay oo si boobsiisaha ayaa insha Allah tacaala ku dhisi doonaa websitekan, maadaama kii hore inta badan ardayda la socota durustan ay kusoo qaateen. kuwan sida yihiin ayaan u dhaafayaa adminkooda ayaan ku dhaafayaa. marka adiga waan kuula talin lahay admin ma ahan wax fiican oo la isticmaalo inta badan, iska bedel. aniga naftirkeyga hadda waan iska bedelayaa, som oo kaliya ayaan ku dhaafanayaa. passwordkana sidaas oo kaleeto mid adag muhiimadana waa inaad iska adkaysaa. kan waa iska bedelayaa admin email si hadhow markii cilad ama passwordkaaga aad ilowdo oo maxaa la yiraahdaa aad halkaas uga raadsatid oo kugu cilad bixiyo verification oo kugu sameeyo. hadda emailkan ma ahan mid jira oo websiteka haddii aad lacag dhiibi lahayd waa laga yaabaa mid saan in lagu sameyn lahaa, laakiin hadda kan ma ahan mid shaqeynaya. sidaas daraadeeda waxaan ku maxaa la yiraahdaa shubanayaa ama aan ku darsanayaa gmail aan aniga leeyahay oo ii shaqeeyo. class editor waa ii muhiim, waan install garaysanayaa. markii halkan aan soo gaaro kaliya waxaa ii dhiman, haddii aan dib u dulmaro waxaa ii dhiman waa inaan install dhaho. passwordka safe ayaan iska leeyahay si uunanba ii dhimin inaga weydiinin. 4 ilaa 3 daqiiqo ayaan soconayaa ayuu leeyahay, laakiin ka suke inuu kusoo dhameyn doono ayaan insha Allah tacaala rajeynaynaa. waa aragtaan waxa uu dhahay installed successful. waa uu noo dhameeyey insha Allah tacaala.